dadkaagii waxaan ahay laga jaray jidhka midaan hooyo waan ku jecelahay laakiin ilka xase waxa uu marka uga shaqayn jiray hab jaajuusnimo oo isagiyo koox kale ay ka dhex shaqayn jireen inay macluumaad ka aruuriyaan dadka kooxda ka tirsan iyo dadka ku dhex nool deegaanada ay ka taliyaan waxayna ka warbixin jireen wax kasta oo kooxda dhexdeeda khatar ku ah balse markii ay dowladdu la wareegtay magaalada Marko waxay isla iyagii laga dhigay koox qaabilsan qalqalgelinta amniga magaalada Marko dowladdu marka meesha soo tashatay markii isoo galeen oo markii kor laga soo wareegtay calash ilaa iyo markii magaalada marka la qabsadayna ragii daaqiliga ahaa ayaa waxa la yiri qaarijiga isku bedelay dowladda imaaday daaqil oo ku soo baxay ninkan qaarijiga ana taasoo qaarij ayaga howlgala ilaa dadka ayaa yaqaano intaan ku soo koray mugta ki isbedelaayo ki jaasus ah askarti dad cusub dilo keeno yani dib way naqanay in loo tilmaamo laakiin anaga wada naqaana ma laga shakisanaa alaykum warahmatullahi wabarakatuh asxaabta qaali iyo qiimaha mudan soo dhawaada farxiyo jana waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba caalamka ay ka joogaan gaar ahaan asxaabta Karin Channel-ka iyo Farxiyo Ibrahim welcome to Farxiyo Channel asxaabe waxaa baraha bulshada qabsaday baryahan dambe labada maalmood nin ay soo xukuntay maxkamadda Soomaaliya ninkaasoo macnaa ka geystay oo ummadda Soomaaliyeed soo dhameeyay xasbi Allah nimcan wakiil ilaahan ka magagalnay ninkaas ummadda soo dhameeyay soo baabi'iyay wallaahi oo billaah markaan aanada internetka aan ka dhageystay oo hina iga qabatay soo u hadlay ninkan inta dadoo ku maqan markuu sheegay wallaahi billaah oo hina iga timid لأن نينك أسدلي هذا أشياء نينك أفكيس أسكو خيرنا هرتا نينك أسكو دلي مساجد كم كيس كصباحي وبنانكيس أصلها صراحة دروخ بض قبل عاد كل حدود حافظ داس أنا أكو جري أنا ما أنتي تعسيدي واتكني والله هو إذا ماشي كويس وحيت الدرس كاين حلاش وأها نينكاس سبحان عسى وجمال ويمدل كسو أصو مساجد كصباحي أي مساجد بنانكيس كدلين هرت أصعب النصيب لي أسوي سقى ونظيف هو طاهر سن إيه دلين نينك اللي دلينين أو حوادث كان قول عدك أو ضدك عدك إيه حسبي الله نمع وكيل إلهي يقصو خبتي وحالي لي نينكي واحد دلو أديغان ديل باكو دنبابين مأهان انتاسو صوماليا كوركا وكو مخان أديغان مانت إلهي قصو خبتي حقا قصو دبريا كوكين أديغان مانت حسبي الله نمع وكيل waxaan kaloo aqaana inta reer marka uu dilay dhan waa aqaana asaga wuxuu yiri waxaan ahay aniga reer marka ahay wiilka oo gaariga ku socdo magaciisa asad ma sha Allah marka cadee laba koona kala deganeen gadaashaas uu ku jiro asagana subxaana asaawada asad dhinac Petras inuu deganaa jeclaa asad anaga dhinac waxaan deganeen oo maxay dhahaan oo wada jir saraha marka ilaahan ka magan galnay maanta haqa ku soo dabriya ku soo bixiyo ku soo qabtay subxaana asaa wajal suu hadlaa inda adeegiisa suu hadlaa le ka war xasbi Allah wa ni'ma wakiil ninka kale oo dhahay hadan waa dili oo markii damrun waay markii oo maxaa lahaa oo rabshada marka cadii hada dhow ee ka soo dhamaatay ani markaas Soomaaliyan joog nimankaas dildiray aniga darasa ahayn markaas aan marka guuriyaa marka aan degay markaas waxaan maqlay ninkan gulcadka niman oo shabaab ee dileen ilaan wax dadka baabi'i kuwan waay calooshis u shaqeystas ahaa ninkan asalkiisii hore wuxuu dhareer marka ay xamaali u ahaa dadka dhuxushu u qaadi jiray kan hadda markii kale oo shabaabta ee shabeelaha hoos ee qabsadeen waxay isku bedeleen dad u shaqeeyeen shabaab u shaqeeyeen noqdeen kulli wixii oo ما في هاي وحي قارقعن ريح جري وحي حمال هاي فون ديالك أو صراحة لسايا دن وحي وقدومين إني لشقيان شبابته لوخ بلوخس إيغا كلاك سايا دادك جيجري إيغا دادك بابي إجري نيكي دهاني والدلا إيغا كشقي جري وحكو الله أكبر وعلى يري وحالي يري دادك فون ديالكي وحالي وحي ندع هاي دن إلا خوف مركو دلو خوف سو دلو $200 قعان لغا سيجري shaqada waa soo fulisay lacag la siina oo $200
wixii oo mushaahar ahaan oo iiga sii karaane ma loo xisaabi jirin waagaas shabaabta xoogay ku lahayd marka every dadka siisi kanuu ahaa miyaa wejiga allah kaa gubo oo dhulka allah kula gooyo xaqii hadda kusoo qabtay waxaasoo dhan ood maanta soo deshi xaqooda kan horta kan macnaha hal maalin ma dukunna nin masaajidkaas dha waa la galnas dha waa la soo dukunaya dha ninka gabil cadka markay dilaayeen markii saas ay usoo baxeen oo banaanka lasoo baxo nin walba kawiisa masaajid yaroo sarax ku dhex yaalo runtiisu banaanka marka kabaa la gashanayan jaaninkaa meedas ahaa waa dhufteen waana ka kala ordeen walle aakhir walaxaa ku haastaa igaariyo nin igaarna matid ninaa tahee baahi kuu geysa mal xamaalnimada wixii marka xamaalika ahaa oo dhuxusha daldali jireen oo guryaha fuundika ahaa kulli waxay isku bedeleen markii shabaabta ay yimideen kulli shabaabay ay raaceen shabaabtay u shaqey jireen dadkay soo jaajuusi jireen xasbiya allah nimulaa caaw kaligeeya iska ooy markiis dhaha anaa dili hebel anaa dili sidoo kale maxamed waxa uu sheegtay inuu gacantiisa ku dilay xaaji baano oo ka mid ahaa waxgaradka magaalada marko xilli uu masjid ka soo baxayay waxaana isagiyo dhagarqabayaasha la socday bannayseen dilka qof muumin ah oo ka soo baxay masjidka eebe yacni ninkan isaga ah oo baano xaaji baano waa nin horta dhoweyda dhan lagu yaqaano markii isaga laga soo laabtay dabadoonnimadiisa iyo durqnimadiisa aadka u ahaa de markuu masaajidka uu kasoo baxay masaajid yar oo arraxma allah oo ku dhex yaaris arraxmadan weyn ma aha oo wajar ku dhex yaal koo kale waxaa jira duruqbada ku dhex yaalo shurufada yar oo duruqbada ay ku tugtaan kii uu kasoo baxay banaankan ku helna marka cadka oo markii salaada soo dugtay banaanka iigan ay soo dukadeen oo masaajidka markii laga soo kala baxin ee meesha ku toogteen oo la dhahay si ninka magaciisa waxaa la asad wuxuu dhahay xaaj baano as dhahay maya xaaj baano aabiisa la ninka uu dil nin dhexdhexaad waa da'dan 40 iyo meelahaas 45 iyo meelahaas uu ahaa ninka nin meel dhexdhexaad uu ahaa maasha Allah nin iska dhaqan uu ahaa ninka habeenkii asagana wuxuu ka mid ahaa dadka nafsadooda difaaco oo iswaardiyay qoryeen lahaa jireen cid kastoo iska dhaqan ay ahaayeen marka shiishkay saareen iyaga baabiimiha kuwan reer maanyo waa kulli wixii oo محلا أو قصة ياك وحتما يبرها الحمد لله كل شباب راعي مركي أو شويلها الشباب تأسو كشرون واي مركا نيجا لدي حال نيجي سيدي سيد اللي جنكا سيد بانو حاج أبيه سال نيجي حاج بانو أسأل لما نيجي سيدي اللي جي لوي لو ولا هاي أساس وقارسناين مدنا عبد الرحمن اللي يجري سيدكي دلين سبحان عسى وجل الله تطوى خبطة إيغاريو ماشي مريس إلهي نمرسيو عذاب تادن الله كو إكيسيو أذي الله كو إكيسيو آخر واحد مكو جري انتاسو نفسد ورهادو وحان كودا لوح أملاس أو بحو يابو مدرونياي مو لكن وحا أسشيغو إنوا رن واي وحا أسشيغو مساعد كاسير أو الدروق بضو شرفة دحياتكو يال أسشيغا رنتيسو أتاسبين معها مساعدك الرحمن الله ولي أنا سفيع وكلا حافظ أنا أنت صوت لما إسكول عندي ناس هذا الجامعة أنا كجري دواني كام أو ضدك بابي جامعة محك شيء إلا لعكتي الما أتكو ضدك أتكو ضدش أو لا لوش لغوسي الجامعة دي وحكو برني سميع جامعة مطال ماشي جيلاني إله ربي الرحمن إله أمتك خو أمتان ضدك بابي حسبي الله ونعم وكيل إله ربي الرحمن أنت أمدنا محمد شاقت إله صحو أمدنا وبابين إله ملقاينا سوسارن كواني وحواك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسك هبا صوت داهي فيني أنا بهد أنت شن سنة لحسن كدواد لحسن ميا أنجوغا بهد أنت رنتي سواني كاس مركز دلايين أنا صومالي أنجوغ مركز عديان ساسو جوغ سبحان الله أو لسكو صباح حافظ أنا واه إسلتري أو سيدة على دل سيدة نين كل الدكتور صباح قلت له أشهد كنا أقول قيرها الدنيا إنسانة وبابينوين ومصيو من الله آخر زمك الرسول عليه الصلاة والسلام مرك الويدي وحيد هين آخر زمك أصحاب إيه ويدي سعدي يا رسول الله آخر زمك محمد كسينا الدنيا ما قدوميس ما يالي الدنيا ما قدوميس يا رسول لكن وحسري وهلاك ميسا هسيك هلاك مي ومدة حسر قعنتوضي اسكو دمينا يعني
عربي عجن صومالي هذا محل دمينو نين والبا نينكا كل walaalkiisa u dilooya istaagay maxamed xaajiilka xase waxaa ka mid ahaa waxyaabaha xajiibka leh ee uu sheegay in markii magaalada marko ay dowladdu la wareegtay uu la noolaa jenaraal ismaaciil oo carruurtiisa uu saaxiib la ahaa iskuulkana wada dhiganayeen wuxuuna barnaamijka gungaar u sheegay in maalinkiina uu gabaad u ahaa guriga jananka habeenkiina uu isla guriga bambooyin ku tuuri jiray si uu u dilo jananka uu gurigiisa ku noolaa ee uu la tacaamulayay sida carruurtiisa oo kale aakhirkiina waxa uu markii uu marka ku dili waayey uu jenaraal ismaaciil axmed cusmaan makiyeeli ku dilay 28kii bishii 10aad sanadkii 2016 degmada waabari ee magaalada muqdisho nin waxaa la dhihi jiray ismaaciil gaashaan dhexe ahaa waa caan waay shanaamadan caanka marka ku taala sheekh ismaaciil markii yaro dambe qashay ninka la hawa janan laakiin siyad bar u ahaa isaga markii dawladda ay dadkii xagga markii shabaabka ay qabsadeen asal oo shaleemada laga burburiyo laga bursado ahaa meesha intuu imaaday dawladda uu soo hubeeyay dib loo sii janay waxa la dhihi jiray darajadiisa markuu soo weeraray si kala daan u dhigay marka aniga iyo wiilashiisa saaxiib waa ahayn shaleemada ismaaciil guriga ku dhiganaa buu deganaa baan weligii magaalada markuu soo galay gurigiina waa deganaa ninkaana janan waay adeeraan iska dhaha marka mugta ilmihiisna saaxiibanahay ninkii aameesh dadka qabtay uu kumid ahaa marka Abdulqaadir Siidi isaga gurigaas qabtay ninkaasna waxa waaye dadka isaga iyo ciidanka iyo dadka si gaar ah u beegsan kamid ahaa isaga dhowr mar oo aan shakhsiyadii iga badbaaday oo aan gurigiisa bam ku tuuray ciyaalkiisa saaxiib waa ahayn hadda marka dambe intaan ku helay ninkii waxaasna way soo dhamaadeen waa la soo weynaaday jaamacada la dhameeyay darad oo Muqdisho kan 2 sano ka hor iyo hal sano ka hor inay tahay jecel Liberian ku helay Ismaaciil asoo Interpol shaqeynaa booliis wiilashan kala asdhahay ninka kale asdhahay oo aan dil oo dhooy hadda oo korneelka Ismaaciil Allah walla calooshi dadnimo ibn aadanimo ay yaqaaniin male walla fuundi weel ma naqdo oo soo dhaweysna ma naqdo ninkan wiilashii oo ninka korneelka oo lagu dil waa beri reer marka waa runtiisu waa shaleemo lahaa jir gabar asagna reer xamar ah oo qabay ilmo badan ee u dhashay ilmo kale waxa jir ilmaha kale oo waweynka oo asaga saaxiib aan la ahay oo soo raac jir u dhahay sax waay ilmo kale oo waweena jireen oo bah kale oo hooyadood la furo idina Yurub joogto hadaba ilmaha waweyn ee soo galeen oo maleena Yurub taane dhinac ka joogta laakiin bahda yareeray oo gabadha gibl cadka ilmaha yaryar haysatay uu ka dilay ilmahaas uu kornaa ilmo badan todo cunug camal ee aabood oo wax ka dhig gablon ka dhig gablo Allah ka dhiwaabo tahay gablone aad umada u baabi'isad ewerka siis xasbi Allah nimcan wakiil wallahi wax la shay alla cawada ninkaan markii codkiis aan maqlisaan oo alla ninkaan halaha dad ashay oo reer markii ee aanay macruuf ahayn oo isnaqiin hada Ismaaciil Shaleemo naagtiis waxa la dhigi jir Safiya la dhigi jir ma sha Allah tabaarka gabar waxay aad gabdhaha cadcadka gibla cadka ee asanimadoo Soomaaliyo ah gabdhahan gibla cadka ay ahayd ma sha Allah tabaaraka Allah ilaahay ma ka cabsan umad waa baabiis Allah ku maqan inta soo ciyaalad agoon ka dhigtay gabadhaas had muxugeeda u xirtay Kenya u guurtay markii ninka laga dilay kadib ciidan Kenya iska degtay alla maanta aniga xadeed dhan istaagtay oo markaan neefsa oo kadib aan soo hadla asxaabe ninka meesha la marsiinaa ummadna Maxamed Ilaahay ma marsiyo toobad iyo tawfiiq Allah na waafajiyo kanoo kale Ilaahay sad noogu daro oo haddana suu kala sheegaya korkii ugu hurnooy burdada caawiga dacaan saacada aan soo jeedo ninka madaxiisu la hawla wala quwwata illa billahi al-ali azim marka laba goor ninka saasoo shabaab ay u jirnaysa ee jarsa jireenas as shaqo loo dhigo iska badbaad ninka dadkii dawladii horas aarun waa as shaqeysa jir askarnimo isku shaqeysa jir markii maarlo waa xuskil maqal ay soo guureen markii dagaalada marka ay badatay ay soo guureen haddana xamar run waa xamara lagu dilay xamar asag markii lagu dilay aan Ethiopian joog leenkaana iyo xareesnaa u soo socday wala khasawatan qasanaxtan leeyahay Allahu akbar wala gacan ku dhiiglo adna maalintaada gacan dad le ku dhimanay been ma aha maalintaada waa waqti aad bixisa la jooga حسبي الله نعم وكيل إنه إسكا مصافعنا إنه ذاك ساعة الله بكعي وقلبي إسكا حنوجي ما بفعنا إنه إسكا مصافعنا أسد حاجة أسجن ونصيب كيس لو هيك باب إيه إلهي أسجن لوهيس إلهي أقص إنه سكر أصاق عص لوهيس كسعد الله أقص مسكين والله
أسد حاجة وحن جعلها إن عم بيتراس إن الدجناين صراحة ما دجنين أسد وأركي لها أنا صراحة دجين هنا وأركي لها ما ريب بيتراس إن هاين نجعلها إن شاء الله حسبي الله ونعم وكيل إنا لله وإنا إليه راجعون أصحابي شيء كذا عاود دين قال أروح مدعيس واجن مبريا إلا هذا حيسوه استاجو دتك سيس وبابي دتك أنا أقين نكاس الله بالله صلاة دتك مساس صبح سيد أنت هذا عدا حاجبانو لما نك سيد الله سيد حاجبانو سيد حاجبانو ونك مجلس مجاك دم أسير مرة أكو ديله أبايا دتوا بابي سوماليا دتوا Soomaaliya dad waa dhamaaday nafsigaa dad soo qabtay maxaan geysan Soomaali maxay geysato loo gudaani kan saan u hadlaa xasbi Allah nimca wakiil sheer ilaak ma bay idin dhigi kara caaween kurba waaye tane intii umadna Maxamed sheegay markii dambe waxay kooxda al-shabaab u soo bedeleen Maxamed Xaaji inuu ka shaqeeyo magaalada Muqdisho Maxamed Xaaji waxa uu ka bilaabay Muqdisho hawlihiisii dilalka dhagarta waxa uu Muqdisho ku dilay dad badan oo haldoor u ahaa bulshadan kuwaas oo isugu jiray saraakiil shaqaale dawladeed iyo dad kale oo bulshada waxgal u ahaa nin shaqo fiican ahaa amal oo أصل لعكتيس لي قدرنا أول فوندس هاجري جارجعن والريح جري أسجى لو ذاس بقولس مال أمليادن أوارا كده على سومال دتك حلو جاذا باهي كوا أول بابانا أنتو جذا ويجي دتك ده عايز كجري كنا إلهي أنتي أمدنا محمد شاقت الله كخبت كنا كان تدوى دمي حمر اللي سو بدل كوا نشخ في هاي عمل حمر مركيلو سو بدل هذا جود سكوك الحديث دينيس كور سكوك الحديث وكدل سكوك فصل الحديث وكدل آمنة حسبي الله نعم وكيل meeqa waxaas dil oo askar ah meeqa ruuxa ku maqan social media ku buuxa walaalaha inta nafar ani hadda intuu asaga u dil oo wiilasha oo Soomaalida oo reer markaa uu sheegay ani aqoonsada hadda intaas darteeda u soo galay intii ummadna Maxamed asdil Allah u naxariisto gacan ka aqdarno ku diliyay asagana maalintiisa uu maraa dambigeeda yaa bari ama saadan xiligeeta asaga toogasha ku dhacday yaa إلهي وحنك يا أو كان عفيس ملقيه كربكن هل إلهو ما أمد أنس بابي كان جور أساس دلي لو ديس بقول له قدرنا لو بقول على سينا هل كم مدح الصوت جبيه الصوت نفطه لو ديس بقول على سينا معروف هاد مركب شباب نيكل شقينا لو بقول هدي هالقف الصوت دي لو بقول سليه حسبي الله نعم وكيل إنا لله وإنا إليه راجعون بالواقع ولا المقدي كرني صومال واحد ميسي أضمان أنت حرق محلا السؤال شباب مريسا أنت صنفنا مسؤول دود أديك صار أنت صنفنا أديك برصايان قيام ماشاك جليس أديك طالع كل بش ماقوا على التوجنا لو بريس دحبير كدب التوجنا دو إلى كان يوحي وأقبل الله ناقة خبطة وين واحد كفدلي جيسة أنت حمر وكدلني مدو مركا كله هاد ما يخو خواك ورا الصيف ديسا السوشيال ميديا أسولف سي شيكا عند أذكى إله وهنا سوء أذيجن يا رب يا رحمة يا رحيم إله ميل در ملقاين هكين يا الله إله نفر بن آدم ملقاين هسو سار يا الله كان حكو هاد لا يا بنا هذا كنا بإيجوي بمحنكو هاد لا ما أقاني والله بالله تالله هذا نحكو فانا فيري يا ويري قرح مركز دعا مركز لها يصير جاء أنا ددان قارجنونا يصير ددك مركز ماش بوخ أصدر يصير ددك وحن قارجنينا يصير بمبا كتورينا بمبا دي مركز ددك أكل أردان يصير لا لها أنا كانوا حاسينكي مركز أو باهنها بف أما ذاك سو توهينا كل رورينا يصير كوران قاعد ما سي جوسك وقارتني كا هذا نوعي كوران ماشي شل عندك كدلي يصير مقاعدي شل عندك كسو توك تصير أم كدلي أما أنت حاسير أنت ماشي في ديسنا شاهن كعبا Soomaalida waxa siri maskax ma hayaan asday ma ikasi karaanbo nin shabaab oo indha u duun yaa kasi karo ninku kasi karo ma laak hadda ilaahay ma ka dhuuma kartaa adig ilaahay ku soo qabta hadda waa timidee bistooladii oo 8 meeqa waa horta 600 aad ku ceeshaysa lahaas yaaliyi aad bees ku qaadinaysa oo umad aad baabiinaysa maanta hadii ku soo qabtay shacbi ma ku soo qabtay
ilaaha kusoo qabta qafuur raxiina kusoo qabtay booskaagan waa timid dadka inta aad dilaysa qoor dadka goynaysa ood madax ka jebinaysa aadna xabadii dadka aad ku dilaysa aad maanta adina xabadii aa kuu taalo ma dhaaf dheh kan waxaan ka sheegaa ma aqaan kan laakiin halahan waxaa isoo geliyay ummadii aan aqaani gabadhaaseet oo ninkeeda oo waa bir uu ku dilo wallaahi saaxiibbaa ahayn safiyaa la dhihi jir gabar gulcada ee dadka cadcadaankay ahaayeen meeqa cunugaas 7 cunugaas agoon ugu dhigi habarta waa qaracantaa ku dheh waa ka guurtay soomaalina waa ka baxda kenya tagtay islee degantahay ilaahay ma ka cabsani subxaana casaa wajal korkaa hor wallaahi cawad markaa dhegaysta ninkaan asxaabteed qiima ay qaayaan mudano waan idin soo gelin doonaa wuxuu ku hadlayn xoogaa waa maqli doontiin insha allah ninka saan u hadlaay asxaabe intii dhimid allah u naxariis soomaal gacantooda isku baabi'isa ilaahow rabbiyo raxmaano ilaahow tan naga bixiya rabtan toodka sheekeeno taariikh ee allah noogu dhigiya allah yaa kariim ilaahow intii dhiman badbaad gabar ardayad ma aqaa maxaa ka dhexeeyay oo iskoolka fasalka dhexdiisa fadhida xamar dhexdeeda isku dili ninka aamina la yiraahdo allahu akbar waxaan ka hadli kara maba ahaba asxaabi khayra isku ognaa insha allah wixii xaq oo dadka dulmaa ilaahay xaqa soo daahir ilaahu dowlad caadil oo dadka kala saarto oo maskiin iyo agoon kala meel u yeesho ilaahu noo keen ya allah ya kariim ya rabbi ya raxmaan ya raxiim intaasaa idin dhaa asxaabtee qiimaha ay qaayaan wax walbood igu samee laheedeen idinka idin xilsaara cawada hadal beeg soo baxaayo wallaahi bilaahi مع السلامة سبسكرايب إي شير دنيعين ويا ربي يسر ولا تعسره